salaamullaahi calaykum kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkan warbaahiya meediya qodobada ugu waaweyn aad ku daawan doontaan warka warbaahiya meediya waxaa ka mid ah maamulka galmudug oo soo saaray amar ka dhan ah dadka ka soo jeeda koonfur galbeed shir looga hadlayay amniga oo lagu qabtay magaalada muqdisho howlgal go'doonka looga qaadayo magaalada marka oo lagu dhawaaqay ciidamo ka goostay Somaliland oo gaaray gobolka Sanaag maamul goboleedka Puntland oo deegaanadeeda ka ciirisay saraakiil ajnabi ah iyo dowladda Soomaaliya oo xil magacaawday fanaanka Nimcaan Hilaac markana ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan halka aad warkan ka daawanaysaan warbaahiya media fadlan subscribe saar channelka warbaahiya media wararka ka imaanaya magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu amar ku soo rogay dadka ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed ee ku nool magaalooyinkaasi sida wararka ka soo baxaya ay sheegayaan maamulka ahlu sunna ee qaybta ka ah Galmudug kana taliyay magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa amar ku bixiyay dadka ka soo jeeda koonfur galbeed inay si degdeg ah uga baxaan magaalooyinkaas maamulka ayaa dadkaasi gaar ahaan kuwa howlaha ganacsi u yimid ku eedeeyay inay halis ku yihiin ammaanka deegaankooda waxayna u qabteen maalmo koob si ay uga baxaan magaalooyinkaasi Dhuusamareeb iyo Guriceel kulamo ay yeesheen ganacsatada ka soo jeeda koonfur galbeed iyo laamaha ammaanka magaalooyinka Dhuusamareeb iyo Guriceel ayaa isfaham waa ku soo dhamaaday waxaana amarkan uu saameyn ku yeelan doonaa dadka ganacsiga iyo nolol kale halkan ku heystay amarkan ka soo baxay maamulka Galmudug ayaa la sheegay inuu ka dhashay ninkii bishii hore lagu qabtay magaalada Guriceel ee xilli uu doonayay inuu isku qarxiyo ninkaas ayaa la sheegay inuu ka soo jeeday deegaanada koonfur galbeed shir looga hadlayay amniga caasimadda ayaa wax lagu qabtay xarunta maamulka gobolka Banaadir waxaana shir gudoominaya gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Injineer Cabdiraxmaan Cumar Ismaan Yariisow shirka ayaa waxaa diiradda lagu saaray amniga caasimadda ee qiimeyn lagu sameeyay kadib howlgallo isdaba joog ah ciidamada ka tirsan booliska ay ka sameeyeen degmooyinka ka tirsan gobolka Banaadir sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka shirka amniga caasimadda ayaa lagu qiimeeyay xaaladda guud kadib kormeer iyo dabagal joogto ah oo aan wadnay muddo isla markaana go'aaminay dib u eegis lagu sameeyay qorshaha sugidda amniga caasimadda ayuu yiri Injineer Yariisow tan iyo markii gudoomiyaha gobolka Banaadir uu ku dhawaaqay howlgallo laga fulinayo degmooyinka gobolka Banaadir ayaa waxaa si isdaba joog ah u qabsamay kulamo looga hadlayay amniga caasimadda kuwaas oo qaarkood shir gudoominaya Ra'iisul Wasaare Khayre gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax iyo xubno la socday ayaa shalay galigii dambe waxay gaareen magaalada marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose iyadoo si weyn halkaas lagu soo dhaweeyay gudoomiyaha ayaa kulamo la qaatay maamulka degmada marka oo ugu horeeyay gudoomiyaha degmadaasi Cabdullaahi Cali Axmed Waafow isagoo kala hadlay sidii go'doonka looga qaadi lahaa magaalada marka waxaana u mahad celiyay maamulka odayaasha ciidamada xoogga dalka iyo kuwa Amisom oo soo dhaweyn aad u weyn u sameeyay soo dhaweyntii shacabka marka waxay baaqi ku ahaan doontaa qalbigayga sidoo kale mar dhow waxaan furi doonaa wadooyin soo gala magaalada si looga saaro go'doonka ay ku sameeyeen nabadiidka al-shabaab ayuu yiri gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose sidoo kale gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax ayaa lagu wadaa inuu maanta la kulmo saraakiisha ciidanka guutada 14aad ee Oktoobar ee gacanta ku haya magaalada marka isagoo kala hadli doona sida magaalada marka looga qaadi lahaa go'doonka ay geliyeen al-shabaab shalay ayaa waxaa magaalada marka laga dareemayay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sameynayeen ciidamada guutada 14ka Oktoobar iyadoo dadka ku nool magaalada marka ay sheegeen inay ka baqdin qabeen in dushooda lagu dagaalamo tan iyo markii ciidamada guutada 14ka Oktoobar ee al-shabaab kala wareegeen degmada marka ay waxa go'doon galiyay al-shabaab oo ku sugan meel aan ka fogeen degmadaas iyagoo diiday inay galaan gawaarida noocyada kala duwan iyo kuwa ka yimaada degmooyinka kale ee gobolka Shabeellada Hoose ee magaalada Muqdisho ciidamo taabacsanaa maamulka Somaliland oo aan tiradooda la shaacin ayaa la sheegay inay ka soo goosteen maamulka Somaliland iyagoo lagu soo dhaweeyay gobolka Sool ciidamadaasi oo wata gaadiidka dagaal ayaa wararka qaar sheegayaan inuu aasaasay boqor buur madow oo kamid ah salaadiinta Somaliland waxay ciidamadaasi soo dhaween qaybo kamid ah gobolka Sool ugu sameeyay odayaasha iyo waxgaradka gobolkaas qaar kamid ah saraakiisha hogaaminaya ciidamada soo goostay ee Somaliland ayaa waxay ugu hanjabeen inay la dagaalami doonaan maamulka Somaliland oo hogaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waa jabhadii labaad ee ka soo goostay ciidamada Somaliland iyadoo horey Somaliland ay uga soo goosteen jabhad uu hogaaminayay Cornel Carre kuwaas oo sheegay inay la dagaalami doonaan maamulka Somaliland marka soo baxayada socdaalka maamulka Puntland ayaa waxaa deegaanada maamulkaasi looga ceeliyay saraakiil ajnabi ah oo u shaqeynayay laba hay'adood ee ka howlgala deegaanada ay maamulaan Puntland labada hay'adood oo lagu kala magacaabo World Vision iyo Relief International ayaa lagu kala eedeeyay falal musuqmaasuq iyo mid kamid ah saraakiisha hay'adda oo ka dhacay sharciga ogolaashada shaqada
madaxa howlgalka ahna madaxa xafiiska Puntland iyo hadaha World Vision Napoleon Fury ayaa lagu eedeeyay falal la xiriira musuqmaasuq iyo ku xadgudubka dhinaca nidaamka shaqaaleysiinta. sidoo kale isna ka tirsanay hay'adda Relief International ayaa lagu eedeeyay inuu iska dhaga tiray cusboonaysiinta ruqsadda shaqada oo ka dhacay kuna xadgudbay shuruucda dalka qaar ee maamulka Puntland. wasaraakiishii ugu horeysay ee ajaanib ah u shaqeynayay hay'ado caalami ah ee Puntland deegaanadeeda ka ceeriso tan iyo markii la doortay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. wareegta ka soo baxday xafiiska wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa waa xilka loogu magacaabay fanaanka Nimcaan Hilaac. wareegtada ayaa lagu sheegay in fanaanka Nimcaan Hilaac loo magacaabay agaasimaha wax soo saarka iyo howlgelinta fanaaniinta qaranka ee gobolada Waaberi. fanaanka Nimcaan Hilaac oo kamid ah fanaaniinta xidigaha geeska ee ka dhisan magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa ka soo tagay deegaanadaasi isagoo yimid magaalada Muqdisho, balse markii dib ugu laabtay deegaanada Somaliland ayaa waxaa xabsi loo taxaabay fanaanka isagoo markii dambe dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. waad ku mahadsan tahay daawashada iyo la socodka warkayga. fadlan ha moogaan inaad subscribe saarto channelka Warbaahiye Media kadibna gambaleelka furato. mahadsanid.